waxaana qaanaan ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo aad iyo aad baan dadka reer Jubbaland iyo martidaba ugu mahadcelinaya waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waxaan isku ognahay shabaab oo la dagaalano ciddii kale carqaladkeedana gacan baan iskaga qabanayna Axmed Madoobe oo soo saaray qoraal xasaasi ah kadib dagaalkii Raskamboni ka dhacay Kenya oo maxkamadeynaysa qaar ka mid ah ciidankii dowladda federaalka ee gudaha u galay xadka Kenya iyo Fahad Yaasiin oo iftiimiyay 5 fariimood oo xasaasi ah oo ku jira heshiiskii Ankara ay ku wada gaareen Soomaaliya iyo Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay Axmed Madoobe ayaa soo saaray qoraal xasaasi ah kadib dagaalkii Raskamboni ka dhacay oo ay ku jabeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa si weyn ugu digtay qorshe la'aanta dowladda federaalka iyo in la huday ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo loo adeegsaday dana siyaasadeed waxaana Axmed Madoobe uu eedeyn xoogan u jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka iyo xubno siyaasiyiin reer Jubbaland oo sheegay inay ka shaqeeyeen burburinta ciidanka qaranka madaxtooyada Jubbaland ayaa mar kale war-saxaafadeed soo saartay ee kana hadashay dagaalkii Arbacadii ka dhacay Raskamboni ee dhexmaray ciidamada maamulkaas iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya Jubbaland ayaa ku eedeysay dagaalka in uu soo abaabulay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay sheegtay inay u arkayeen in uu ku gaari karo dana siyaasadeed oo guracan iyadoo sheegtay in ay ahayd qorshe xumo lagu burburinayay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed Jubbaland waxay si aad ah uga xun tahay dagaalkii ka dhacay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo nasiib darro ay isku dileen wiilal Soomaaliyeed waa dhacdo laga baaqsan karay iyadoo ay ahayd in lagu xaliyo wada hadal iyo isku tanaasul sida marar badan aan cadeynay dagaalkan waxaa soo abaabulay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa kuwaas oo arkayay inay ku gaari karaan dana siyaasadeed oo guracan iyadoo la adeegsanayo ciidanka xoogga dalka si ka baxsan waajibaadka sharci ee ciidanku leeyahay falkan sharci darrada ah awgood Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu waxay ciidamo soo daabuleen deegaanka Raskamboni halkaas oo dabka lagu shiday dhalinyaro Soomaaliyeed si loo gaaro ahdaaf siyaasadeed oo baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Jubbaland waa muhiim in la xuso in deegaanka Raskamboni uu ahaa deegaan nabdoon oo aysan ka jirin wax amni darro ah 13 sano ee la soo dhaafay sidoo kalena ayna qayb ka ahayn deegaanada ay joogeen ciidamada ADMIS ee dalka ka baxaya nasiib darro halkii dawladdu u adeegsan lahayd ciidamada xoogga deegaanada wali ku jira gacanta qawaariijta ayaa loo isticmaalay deegaan nabdoon oo ka xoroobay qawaariijta sanadkii 2011 waxaa tusaale muuqda ah in deegaanada ku hareeraysan Muqdisho ay wali ka taliyaan qawaariijta iyadoo Xasan iyo uu ciidanka xoogga diyaarad ku keenay Raskamboni si uu fuliyo dana siyaasadeed oo aan waafaqsanayn maslaxadda guud ee dalka dowladda Jubbaland waxay aaminsan tahay in qorshayaasha ciidamada xoogga lagu dhexgelinayo arrimaha siyaasadda ay yihiin kuwa dhabarjab ku ah dib u dhiska dowladnimada gaar ahaan hay'adaha amniga iyo ciidanka xoogga oo ah laf-dhabarta qaranimada dalkeena ayaa lagu yiri qoraalka Jubbaland maanta qaar ka mid ah dhaawacyadii ciidamada xoogga ay ku waxyeeloobeen dagaalka Raskamboni ayaan u dirnay magaalada Muqdisho si ay u helaan adeegyo caafimaad oo dheeraad ah sidoo kale dhammaan ciidamada ku jira gacanta Jubbaland waa wiilal Soomaaliyeed oo dhulkoodii jooga waxaan loola dhaqmayaa si sharaf leh dhaawacyada waxaa la siinayaa daryeel caafimaad oo dhameystiran waxaana markii ay bogsadaan lagu celin doonaa guryahooda iyagoo nabad qaba ayuu yiri Axmed Madoobe ugu dambeyntii dowladda Jubbaland waxay cambaareynaysaa mowqifkeeda in xalka khilaafka siyaasadeed uusan ku jirin xabad Jubbaland mar walba waxay diyaar u ahayd ayaa la yiri wada hadal iyo in wixii kala duwanaanshaha lagu xaliyo miiska wada hadalka iyo isku tanaasulka ayuu yiri qoraal ka soo baxay hogaamiyaha Jubbaland oo si kooban uga hadlay wixii ka dhacay Raskamboni iyo dhibaatadii ka dhalatay dagaalka wiilal Soomaaliyeed ay qoorta isla galeen waxaana Axmed Madoobe mar kale uu ku diganayaa Xasan iyo kooxdiisa oo talo xumo iyo qorshe la'aan dabka u galiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale Kenya ayaa maxkamadeynaysa qaar ka mid ah ciidankii dowladda federaalka gudaha u galay xadka Kenya xilli tan ay si weyn u hadal hayso warbaahinta gudaha dalkaasi Kenya dowladda Kenya oo mar kale garab siinaysa Axmed Madoobe ayaa qaaday tallaabooyin kale oo ay ku doonayso inay ku wiiqdo awoodda geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed ciidamadii iyo saraakiishii ka gudbay xadka Kenya ay mar kale doonaysaa in maxkamadda saarto Kenya iyadoo markaas ku sheegaysa in iyagoo hubeysan ay ka talaabeen xuduudda taas oo ka dhalan doonta in labada dal xiriir xumo soo kala dhaxgalo
Kenya ayaa maxkamadeynta ciidamadan u mareysa waddo sharci ay ku tilmaamtay taasoo la xiriira in askari dal kale uu soo galay dalkeeda sifa aan waafaqsanayn shuruucda dalalka iyo sidoo kale dowladaha xuduudda wadaaga. dhinaca kale Kenya ayaa ciqaabaysa diyaaradihii dhowaan ciidamada ka daabulay Muqdisho kuwaas oo geeyay Ras Kamboni iyadoo mar kale u garaabaysa Axmedoobe ay mar kale qaadaysa Kenya tallaabooyin u muuqda cunaqabatayn ganaax iyo sidoo kale maxkamadeyn inay isugu dareyso ciidanka iyo diyaaradihii qaaday. diyaaradihii ka diiwaan gashanaa Kenya ee ciidamada ka dejiyay Ras Kamboni ayaa lagu amray inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan $42,000. hay-adda maamusha duulimaadka rayidka ayaa shirkadahan ku ganaaxday inay bixiyaan lacagtaasi. Kenya ayaa sidoo kale xanibaad saartay dhammaan diyaaradaha ka qayb qaatay duulaankii ay Villa Soomaaliya ku qaaday Jubbaland ee ciidamada iyo qalabka military geeyay Ras Kamboni. 14 beri ayaysan ka degi doonin diyaaradahani garoomada Kenya waxayna arrintani noqonaysaa mid lagu ciqaabayo diyaaradihii rayidka ee loo adeegsaday inay daabulaan ciidanka. Jubbaland ayaa ka fiirsanaysa dhankeeda in ay ka sii shaqeeyaan gudaha Jubbaland diyaaradaha daabulay ciidamadii weeraray Ras Kamboni ee qalqalgeliyay amniga iyo xasilloonida Jubbaland. maamulka Xasan Sheekh ayaa duulaan uu dhiig ku daatay ku qaaday Jubbaland ciidankii qarankana u adeegsaday ajenda siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed. dhammaan arrimahan ama sidoo kale xogahan ayaa muujinaya in dhammaan diyaaradaha qaaday ciidanka ay u kiraysan yihiin shakhsiyaadii ganacsato ku heeba Xasan Sheekh Maxamuud oo go'aansaday in uu macaash ka sameeyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Jubbaland ayaa Villa Soomaaliya ka adkaatay duulaankii military ee ku soo qaaday Ras Kamboni waxayna weli Jubbaland raad guraysaa in ay albaab walba ka soo xirto Xasan Sheekh iyadoo adeegsanaysa sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. waana tallaabo kale oo wiiqaysa awood dowladnimo korna u qaadaysa in qarankeena markasta duulaan lagu soo qaado. ugu dambeyntiina Fahad Yaasiin ayaa iftiimiyay 5 fariimood oo xasaasi ah oo ku jira heshiiskii Ankara ay ku wada gaareen dowladda Itoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin ayaa ka hadlay heshiiska ay dhowaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku gaareen madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo iftiimiyay arrimo muhiim ah. Fahad ayaa soo bandhigay ilaa 5 fariimood oo ku jira heshiiska isagoo tilmaamay sida uu filanwaa ugu noqday heshiiskan dowladaha Masar iyo dowladaha Itoobiya iyo sidoo kale ay wada gaareen Soomaaliya. dowladaha Masar iyo Eritrea heshiiskan wuxuu ku noqon doonaa filanwaa waxay sugayaan dhaqan gelintiisa iyo wadahadal soo socda ee nooca gaarista badda ee Itoobiya ay doonayso. Fahad ku yiri qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka. Fahad wuxuu yiri 5 fariimood ee shirka Ankara. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xaqiijiyay dhowrista madaxbannaanida dalka, burinta heshiiskii Muuse Biixi iyo dib u dhigidda heshiiska bixinta badda. Abiy Ahmed wuxuu helay gaarista badda oo loo ogolaaday gelid iyo bixid damaanad qaadka dowladda saddexaad iyo joogista ciidankiisa Soomaaliya. Cabdiraxmaan Ciro 10 saac ka hor intaan xilka loo dhaarinin baa Faraj cirka uga soo riday miinooyinkii uu uga tagay Muuse Biixi ayaa si sahal ah looga saaray jidka. nasiino maskaxeed iyo buuq la'aan buu dadkiisu ugu shaqaynayaa. dowladaha Masar iyo Eritrea heshiiskan wuxuu ku noqon doonaa filanwaa waxay sugayaan dhaqangelintiisa iyo wadahadallada soo socda ee nooca gaarista badda Itoobiya ay doonayso. ereyada la xiriira gaarista badda waa kuwa u baahan in la tashiyo sharci iyo taxadar dheeraad laga sameeyo ayuu yiri Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. saaxiibayaal wanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. nabadgelyo.